maalmaha magaalada tan London ee boqortooyada wadanka Ingiriiska waxaa ka soconaya munaasabada lagu weyneynaya isla markaasna lagu xusayay xilligii xorriyadda ay qaatay ummadda Soomaaliyeed isla markaasna ay iska tuureen heeryada gumaysiga. Halkani waa Willesden Sports Center, kumanaan dad ayaa isugu soo xoomay. jaaliyadda Soomaaliyeed oo hogaaminayo Sheekh Saciid ayaa kulankani aad ku weyn soo qaban qaabisay. dad badan oo aad u qiimo badan ayaa halkani ka soo qayb galay. Carruurta ku dhalatay wadankani waxay u ahayd mid aad iyo aad u farxad badan kadib markii dadkii halkaasi isugu soo xoomay iyaguna ay qayb ka ahaayeen. jaaliyadda oo hogaaminaya Sheekh Saciid ayaa kulankani soo agaasimay. halkani waxaa ka hadlay dad badan oo ka soo qayb galay munaasabadda ay isugu jira ajnabi iyo Soomaali, dhammaantoodna magac ku leh wadankani Ingiriiska. sidoo kale waxaa qayb ka ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya boqortooyada wadankan Ingiriiska Masar Dayib oo halkaasna asna aad ugu faraxsanaa inuu ummadda Soomaaliyeed oo farxadda la qaybsado. Happy Somali Day and Eid Mubarak. Your Somali's contribution in Brent is anonymous. There's a population of 20,000 of you, and you only have to see the staff at Brent Council, Brent Health Matters, and everywhere there are Somali boys and girls making a difference in this community, and we really appreciate your contribution. Long live Somalia! كفي عن مجره إن بني آدم تكون ولا حرية أيام في جوجنا بيرتان حرية أيام في دبال دقينا ما شاء الله وحليها هاي ويكا حرية الصومالية دولة وغوي جيبوتي يا صوماليا. Happy Independence Day. Somalia hanolaato waa maalin qiimo leh. gabdhaha Soomaaliyeed hanolaadeen. Let me hear some noise. gabdhaha Soomaaliyeed hanolaadeen. markaasaa waxaan ku soo dhaweynayaa His Excellency Dayib Sheekh Ahmed, wasimaha safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee London. Dayib Sheekh Ahmed, soo dhawow. mahad leh Ilaahay caawa isku kacay keenay wiilkii xurriyadda iyo July 1st iyo 26 June. taariikhda waxaan rabaa inaan soo sheego Soomaaliya calankii ugu horeeyay waxaa laga taagay waqooyi 26 June 26 June. waxay soo joongareeyeen wiilka Kowdi Lilio waxay noqdeen Soomaaliya. waxaan leeyahay maanta waa maalin taariikha sida cabdi uu sheegay waa wiilka xurriyadda Soomaaliya. waxay 26 Djibouti oo ay 27 iyo July 1st fooda ugu soo haysay iyadana maanta aan dabaaldegayno. waxaan leeyahay Soomaaliya ku nool Brent iyo Soomaaliya ku nool London inta xafladdan joogtaba UK oo dhan anigoo ku hadlaaya magaca xukuumadda Soomaaliyeed iyo magaca safaaradda waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo. waxaan rabaa inaan xuso Soomaalida quruxda badan ee maanta iskugu timid baalkahan runtii intii ka soo shaqaysay inta bulshada waxaan leeyahay Ilaahay khayr ka siiyo. waxaan u mahad celinayaa Dr. Saciid oo dhinacayga taagan oo runtii sameeyey kana shaqeeyey in ummadaan isku timaado, annagana na soo ogeysiiyey degmada Brent iyo meeyarkii ka hadlaya Xarbiba. waxaan leeyahay waxaad gasheen taariikh runtii. waxaan inaynu ku daydo ayay muhiim tahay jaaliyadda degan UK inay aragto reer Brent waxa ay qabteen iyo waxay sameeyeen. waxaan leeyahay mar labaad mabruuq مبروك مبروك همبليو همبليو همبليو.
noolaato halkani waa Shafi Media Production oo ku faraxsanahay inaad la soo booqato oo aad saaxiib la noqoto barnaamijyada aan idin soo baahino kambalka furo oo subscribe-ka inoo saar annagana waxa sharaf noo ah mar walba la socodkaaga geed baa loo fadhiisan jiray geed baa loo fadhiisan